Jump. Audio Jungle. kulanti waxa wanaagsan idin lahaantiin baa khiyaarta dabcan sida tooska wada noogala xiriidha ay halkan waa xaqiiq media aniguna waa Nimcaan Saciid Faarax ku soo dhawaada barnaamijkeeni xulka wararka oo toddobaad walba hadaad oo kala si toos ah uga daawataan xaqiiq media qodobada ugu waaweyn barnaamijkeeni xulka wararka waxa ay kala yihiin kooxda al-shabaab ayaa weerartay fariisimo ciidamada wadanka Kenya ay ku leeyihiin deegaan u dhow magaalada Garissa taliyaha ciidanka booliska Soomaaliyeed ayaa waxa uu la kulmay dhigiisa taliyaha booliska AMISOM sidoo kale waxaa daawan doontaa warbixin ku saabsan qaraxii maalinimadii shalay ahayd ka dhacay magaalada Laascaano ee xarunta gobolka Sool Turkiga oo ku hanjabay inuu malaayiin qaxootiga ku sii dayn doono wadamada qaaradda Yurub daawadayaal waxay ahaayeen qodobada ugu waaweyn warka barnaamijkeena xulka wararka ku soo dhawaada warkaas oo dhan Audio Jungle. waxaa daawadayaal waxay ahaayeen qodobadii warka haatan warkii oo dhan kooxda al-shabaab ayaa waxa ay weerar ku qaaday fariisimo ciidamada wadanka Kenya ay ku leeyihiin deegaan u dhow magaalada Garissa qodobka waxa inoo faahfaahinaya wariyaheena Cabdishakuur Faarax Igale sida ay daabaceen qaar kamid ah wargeysyada ka soo baxa magaalada Nairobi ee caasimadda dalka Kenya ayaa lagu sheegay in koox ka tirsan al-shabaab ay weerar ku qaadeen saldhig ciidamada Kenya ay ku leeyihiin deegaan lagu magacaabo Garissa oo hoostaga magaalada Garissa weerarkan kooxda al-shabaab ay ku qaadeen saldhiga ayaa la sheegay in halkaas ay ku sugnaayeen ciidamo isla markaana uu dagaal muddo kooban socday ku dhaxmaray kooxda al-shabaab iyo ciidamada halkaas ku sugnaa wararka ayaa waxay intaasi ku darayaan inuu jiro khasaaro dhimasho iyo dhaawac ah oo ka dhashay dagaalkaasi dhaxmaray ciidamada booliska Kenya iyo maleeshiyada ka tirsan kooxda al-shabaab balse aan la shaacin khasaaraha dhabta ah ee ka dhashay dagaalkaasi kooxda al-shabaab oo sheegtay mas'uuliyadda weerarkani ayaa waxa ay sheegeen inay gudaha u galeen saldhigga ciidamada Kenya isla markaana ay burburiyeen agab ciidan oo yaalay saldhigga saraakiisha ciidamada ee magaalada Garissa ayaan wali ka hadlin weerarkaasi kooxda al-shabaab ay ku qaadeen saldhigga ciidamada Kenya ay ku leeyihiin magaaladaasi sidoo kale kooxda al-shabaab ayaa sheegtay mas'uuliyadda weerar lagu burburiyay xarun ay leedahay shirkadda isgaarsiinta Safaricom ee ku taala deegaan lagu magacaabo Dabasiti oo hoostaga degmada Ceelwaaq ee dalka Kenya al-shabaab ayaa intaasi ku daray inay weerarkaasi ku gubeen xarunta shirkadda Safaricom ay ku lahayd deegaankaasi labadan weerar oo ay kooxda al-shabaab ka fuliyeen gudaha dalka Kenya ayaa waxa ay ku soo aadayaan iyadoo taliska Mareykanka ee Afrika uu sheegay inay duqeyn ku dileen horjoogo ka tirsan kooxda al-shabaab iyo xaaskiisa kuwaas oo ay ku sheegeen inay soo abaabuleen weerarkii kol hore lagu qaaday saldhigga ciidamada Mareykanka ay ku lahaayeen deegaanka Lamu ee dalka Kenya Cabdishakuur Faarax Igale taliyaha ciidanka booliska Soomaaliyeed Generaal Cabdi Xasan Maxamed Xijaar ayaa waxa uu la kulmay dhigiisa AMISOM qodobkaasna waxa inoo faahfaahinaya wariyaheena Xasan Hatrik taliyaha ciidanka booliska Soomaaliyeed Generaal Cabdi Xasan Maxamed Xijaar ayaa xafiiskiisa magaalada Muqdisho caasimadda Soomaaliya waxa uu ku qaabilay dhigiisa taliyaha iyo waliba saraakiisha booliska AMISOM ee ka howlgala Soomaaliya kulan gaar ah oo ay wada yeesheen labada dhinac ayaa waxa ay ugu wada hadleen xoojinta wada shaqeynta labada dhinac iyo waliba sugidda amniga doorashada qaranka ee la filayo in ay Soomaaliya ka dhacdo sanadka 2020 ilaa 2021 taliyaha booliska AMISOM sareeyo guuta Mr. Anan ayaa dhankiisa ciidanka booliska Soomaaliyeed ku amaanay sida ay ugu diyaarsan yihiin waajibaadkooda waxa uu ballan qaaday in ay qaybta kaga aadan sugidda amniga doorashooyinka ay ka qaadan doonaan ugu dambeyntiina taliyaha ciidamada booliska Soomaaliyeed Generaal Cabdi Xasan Maxamed ayaa saraakiisha booliska AMISOM ugu mahadceliyay sida wanaagsan ay u wada shaqeeyaan booliska Soomaaliya isagoona ugu baaqay in ay dardargeliyaan wada shaqeyntaasi
halkaad weli nagala socotaan daawadayaal waa xaqiiq media waxay noo soo socda warbixino kale oo ku saabsan Soomaalida iyo caalamka balse markan qarax ka dhacay jihada dhanka bari ee magaalada Laascaanood ayaa laga maqlay qaybo kamid ah xaafadaha Kaagdhow aagaasi waxaa la xaqiijiyay in lagu xiray waxyaabaha qarxa gaari uu lahaa gudoomiyihii maxkamadda gobolka Sool Xasan Sheekh Maxamuud Allah u naxariisto oo ugu dambeyn u geeriyooday dhaawac ka soo gaaray qaraxaasi waa hagaag daawadayaal hadda waxaa si toos ah qadka telefoonka ugu jira Sakariya Maxamuud Maxamed oo kamid ah bulshada rayidka ee ku dhaqan magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool Sakariya maalinimadii shalay bal qaraxa ka dhacay magaalada Laascaanood qaab noocay u dhacay qaraxaas ku dhacay shalay gudoomiyaha gudoomiyaha ka soo baxay howlihiisa qaraxaas u dhacay waxa lagu xiray gaariga qarxa waayahay Sakariya wax khasaaro ah oo qaraxa soo geystay ma jiraan qaraxaas waxaa meesha ku dhacay wiilka la rabay gudoomiyaha maxkamadda gobolka Sool Xasan Sheekh Maxamuud shaqsigiisa la rabay ilaalinta daacadana ku dhacay marka laga yimaado gudoomiyaha oo ku geeriyooday gudoomiyaha maxkamadda sare ee gobolka Sool oo ku geeriyooday halkaasi iyo kale oo bulshada rayidka wax ku gaareen hadda lama hayo in kale wax ku gaareen marka laga reebo gudoomiyaha oo dhintay marka qaraxaas wuxuu ahaa qarax gudoomiyaha loogu talagalay marka la sida uu qofka meesha uga dhacay waxay u qaaday inuu ahaa gudoomiyaha lagu talagalay waayo waxa lagu xiray gaariga saddexa kursiga fadhiisanayna waa lagu talagalay qaraxaas wuxuu muuqdaa in gudoomiyaha lala helay laguna guuleystay ilaa iyo hadda wax dawladdu ma ka soo saartay amara waxaa la taliyaha qaybta gobolka Sool waxaa sheeganaya laba xubnood oo lagu tumsan yahay in qaraxaas ka dambeeyeen sidoo kale waxaa sheegay xubno kale ku dambeeyeen oo la sheegay in qaraxaas iyo wax ka maleegay cid sheegatay oo marka laga yimaado dadka lagu tuhmaayo qaraxa cid sheegtay ilaa hadda ما هذا إيش هذا كم شفته لكن حلو تقول يا قولي هراء قرحي وقلنا في يعني بدو تقول يا شعب في تبقى على نوع شيء لكن تقول أوقات أنا قولي وهذا سكريا وقدمين شوي جا مجالات وسايهاي شوي مجالات عادية تقولي هاي شعبنا كده دي هراء قرحنا مجال شوي مجالات تقولي هاي واحدة محتوى هذه كتير كم marka ma la soo qabtay dadkii lagu tuhmay qaraxaasi mise wali gacanta dawladdu ma soo gelin sida uu sheegay taliyaha qaybta gobolka Sool wuxuu sheegay in ay laba xubnood oo qaraxaasi ku tuhmsan yahay waxay ku dawladda markaa hadda laba xubnood baa la hayaa sida uu taliyaha sheegay aad iyo aad baad u mahadsantahay Sakariya waa tay daawadayaal wixii warar oo ka soo kordha gadaal ayaan kala socodsiin doonaa hadduu idin kale ay ka dhigo Turkiga oo ku hanjabay inuu malaayiin qaxootiga ku sii dayn doono wadamada qaaradda Yurub madaxweynaha wadanka Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa waxa uu sheegay inuu ka baxayo ballan ay wada galeen midowga Yurub sanadkii 2016 wariyaheena Khadar Haybe ayaa warbixintan inoo soo diray madaxweynaha Turkiga ayaa ku hanjabay in malaayiin qaxootiga oo dheeraad ah ay ku sii dayn doonaan qaaradda Yurub Recep Tayyip Erdogan ayaa hadlay kadib markii dalkiisu uu furay xuduudaha uu la wadaago Yurub gaar ahaan dalalka Greega iyo Bulgaria Erdogan wuxuu xusay inaanay fulin doonin heshiiskii dhexmaray midowga Yurub sanadkii 2016 kaasoo dhigayay in muhaajiriinta lagu hakiyo gudaha Turkiga oo laga hor istaago inay galaan qaaradda Yurub wuxuu walaac ka muujiyay xaaladda wadanka Suuriya isagoo xusay inaanay hakin doonin mowjadaha dadka ee ka soo barakacaya colaadaha Suuriya ciidamada Greega ayaa is hortaagay kumanaan qof oo raba inay galaan gudaha qaaradda Yurub waxa la arkayay muuqaal ay sii deysay dawladda Turkigu kaasoo muujinaya doonay saarnaayeen muhaajiriin tiro yar oo ciidamada Greega ay isku dayeen inay quusiyaan balse goor dambe ay badbaadiyeen ciidamada ilaalada xeebaha ee Turkigu doonta yar ay la socdeen ayay sidoo kale ku rideen ilaa 3 xabadood oo rasaas ah ciidamada ilaalada xeebaha ee Greegu balse waxay u muuqdeen inay biyaha ku dhaceen hal qof oo caruur ah ayaa ku dhintay doonta Turkigu wuxuu martigeliyay muhaajiriin dhan 3.7 milyan oo qof wuxuuna hadda rabaa inuu ku sii daayo midowga Yurub Erdogan wuxuu sheegay Yurub inaanay waxba ka qaban xaaladaha bini'aadanimo ee ka soo yaacayaan dadka reer Suuriya oo u badan qaxootiga uu hayo hadda siyaasado iskhilaafsan ayaa midowga reer Yurub uga yaala arrimaha qaxootiga iyo muhaajiriinta iyagoo marar badan isku qabtay sida ay u wajahayaan Khadar Haybe
waatay daawadayaalkaasi aan ku joojinayaa guud ahaan barnaamijkeennii xulka wararka oo toddobaad walba hadaan oo kale si toos uga daawataan xaqiiq media waxaa barnaamijkeena la socodsiinaya anigu waa Nimcaan Saciid Faaraxa inta barnaamijkan kan xiga ku kulmi doono waad ku maasantihiin la socodka wararka iyo barnaamijyada ka baxa xaqiiq media tusan iyo war khayr tawfiiq daal. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.